جزاك الله خير شيخنا. سؤال saddexaad wuxuu leeyahay sheekh saa'ilkani anigoo musaafira ayaan dib u dhigay salaadii duhur casarkii ayaan soo gaaray deegaankaygii sideen u tukanayaa salaadii duhur miyaan qasrinayaa mise waan dhammaystirayaa bismillaah jawaabtu waxaa weeye sida roon waa inuu dhammaystiro haddii duhurkii iyo casarkii uu dib u dhigay jamca ta'khiir wixii la odhan jiray kadibna asagoon midna tukan uu gurigiisi tago iyo beledkiisi inuu dhammaystiraa wanaagsan waa masale khilaafiya fuqahaada muskumaan dhaafeen waxayna u laabanaysaa qaacidadii aad taqaanina ahayd ma waqtul wujuubkaa la eegayaa mise cinda alficli baa la firinayaa waajibka xilliga la gudanaya waxaad ku sugan tahay miyaa la eegayaa mise xilligii dimadaada uu waajibku qabtay baa la eegayaa haddii la eego xilligii dimadaada uu waajibka qabtay duhur wuxuu kusoo qabtay adoo musaafir ah casarna hadda wuxuu ku hayaa adoo muqiima musaafir ahay marka haddii kaa la eego waa la kala qaybinoo casarna waa la dhammaystiri duhurna asagoo gaaban baa la tukanaya haddii la milicsado waqtulficli cinda aladaana waxaa weeye oo hadda gurigaadi baa timid waad nagaatay musaafir ma tihid duhur iyo casarba waxay dhaceen fii waqti aliqaama marka walxadar marka waa la dhammaystiraya khuruuja min alkhilaaf labada salaadoodba ruuxa dhammaystiro afar ha tukado hana jamciyo wallahu aclam.